bilowgii bishii afraad ee sanadkan tuulo yar oo ku taala dalka India ayaa waxa ka dhacday dhacdo la yaab leh. Bisad yar oo ay lahaayeen qoys degan tuuladaasi ayaa waxay si kadis ah ugu dhacday god dheer oo lagu ridi jiray xashiishka noocyadiisa kala duwan oo qiiq iyo ur la circiirayay. wax yar uu kadib qayladeedii waxa maqlay oo ku soo dabagalay mulkiilaheedii, kaasi oo isna ku xidhnimay markuu garan waayay si uu uga soo baxo. isna qaylo dheer uu sameeyay kadib waxa macquul noqotay inuu maqlo wiilkiisii oo isna bilaabay inuu ka soo dabagalo godka si uu bal wax uga qabto arrintan. isna nasiib darro sidii aabihii oo kale ayuu ku dhaxanimay. intaa kadib 3 qof oo kale ayaa iyaguna inta islahaayeen wax badbaadiya mid u soo galay oo sidii hore oo kale ku dhaxanimay. laakiin nasiib wanaag qofkii lixaad ayaa ugu dambeyn yimid isaga oo wata xadhig oo isagu inta uu isku xidhay galay godka si uu bal dadkan uga soo saaro, balse nasiib darro